aynu ku bilowno wararka imanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamo ka socda Somaliland saaka aroortii ay galeen tulada Saaxdheer oo ilaa 90 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada Laascaano sida BBC-da uu sheegay nin u hadlay ciidanka Somaliland ujeedadii ay u galeen tuladaasi Saaxdheer waxay ahayd sida uu yiri in ay ka soo qabtaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya siyaasiga Cali Khaliif Galleer oo ay ku eedeeyeen inuu isku dir iyo nabadgelyo darro ka wado jiidaasi afayeenku waxa intaasi ku daray ciidamadoodu inay eryadeen gaadiid uu watay Cali Khaliif kadib markii uu ka cararay tuladaasi sida ay hadalka u dhigeen haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu hadda la hadalno si toosa Cali Khaliif Galleer qudhiisa oo hadda ku jira khadka marka hore aad baad u mahadsantahay Cali Khaliif Galleer ma jirtaa in lagu baacsanayo وهذه أدو مع سنتين أنا ما دقيسن وركا BBC ده منك على إذا ماذا صومالي ديت كاش منك صعداء إذا ماذا وركا هو شيء ما دقيسن لكن ومغلي حتى أنا وابيدك شيء ويمكن يدك شيء وارون أنا هذا مدة لا صدق هو كله وحان أبضنا magaalooyinka Boocame karin dabayl weyn Saaxdheer Kengeeyo Balcad Xamar lagu xid Qararo Buuqodle magaalooyinkaas sababta aan tagay ugu weyn waxay ahayd shir ay khaatuma leedahay oo loogu talagalay in magaalada Talax lagu qabto wax sirana ma ahayn waxaanu miidiyaha telefishinada radio internetka ay la socdeen bay ahayd waxa uu xujo in maamulkaas hadda ismahadiyay uu leeyahay ma shiri karaan reer Khaatumo umada dhan ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku nool ما شيري كران على قليل ونوصل لابن دونا أرنت الشركة وحيدو حيقوم مقطعين الجارين لكن وطلنتين أرنتو ذنو وعن ماشا أبتبني أرجول الشركة إيمانية إن الحلو أرنت الشركة وأن أوجد قال دونا إيو واحد خاتم أهان كود هاد ليسين لكن ما جرت هذا الكنا يشجعيان إن إذا ماذا سوماليلاند أي سوق قالن حاجة صادق ساكا أتشوكته حتى سحاجات شوكته مركا أي شيء يعني لي سحدير بانو قالي ومن كاسان سوق بان لهين أيام درد وحي تسويسا intelligence كوده ورلعان كوده iyo fikir la'aantooda iyo haday military operation galayaan yoolkooda wuxuu haduu ka ahaa anigu magaalada door horaan ka baxay waxa la qarinayna ma ahayn magaalooyinka ku dhow yaan u baxnay shirarkaasaan wadnay anagoo magaalooyinka joogaan u maqalay nimankaas soo galay Saaxdheer isma arag sanqadoodana ma maqal raadkoodana ma arag waray sheegayaan iyo oo ay ka akhriyeen meeshana kumaanan maqal marka arrintan ay leeyihiin waxay rabaan waxa mashruucda ay u ahayd maamulkooda xoogaa ku gilgilanayaan oo ay leeyihiin waxaan soo qabanaynaa oo military operation kaasaan gelaynaa waan ku fahmay it was poorly planned they qorshahooduna wuxuu ahaa midaan qof military wax ka yaqaana ama wax maamuli karaa insan dejin meesha ma joogin waan gartay marka adiga iyo garaad jaamac markay soo galayaan ma joogin marka ay ka baxeen ma joogin saaka saan ugu baxay Saaxdheer kuma noqon magaalo kalaan hadda joogaa oo halka laga yaabo ilaa 100 kilomitir wax ku dhowga inay u jirto waxaan qarsanaynaa maaha meeshaan u soconaana waa Talax waan gartay in Cali Khaliif waxaan rabay marka inaan arinta shirka u soo laabano wax ka weydiiyo shirarkan Khaatumo muddo fara badan baad u fadhideen oo aad shirayseen oo aad maamul samayseen madaxweynayaal maaragtay wareegta aad samayseen marka
marka la eegana waxay u muuqataa in gobolkan lagu muransan yahay idinku xitaa qudhiina aad kala go'an tihiin oo Somaliland iyo Puntland u kala go'an tihiin marka waxaanad wadaan wax dhamaado ama mowqif midaysan laga gaari karo uma muuqdaan Soomaa maya warka bikulli ixtiraam waad ku khaldan tahay laba arrimoodba dood baan ka qabaa arrintan aad leedahay meesha waaba la isku haystaa Soomaalidu waa qabaa'ilkuna qolol meeshay degto way taqaanaa waana la yaqaan ilaa isticmaalkii baa la yaqaanay Puntland dhulkay degto ama majeerteen uu dego waa la yaqaan dhulka isaaqdayana waa la yaqaan dhulka dadka khaatumo ay degaanna waa la yaqaan cid Soomaali oo meel kale oo Soomaaliyeed oo hunguriga intaa leeg uu ka dhici karaa ma uu jiro kuwa kale magacyadoodii baa qabiilkii carab baabtee kuwaada maxaad u qarinaysaa dee adaan aqoon mindhayne aqoontaada midayninta ku ega waa la yaqaan Sooliya Sanaag iyo Cayn waxa dega laakiin Soomaali baana dhageysanaysa aniga kaliya kuma dhageysanaysa Soomaali oo dhan baan dhageysanaysa doctor war aniga arrintan waxaad igala muhiimtaa anigu idan ma warsaneen ad interview ka qaadaan haddaad sidaan aan kugu sheegay adaan raalli ka ahayna waa telefoonka waa dhigayaa midda aan rabaa aan dooda ka qabaa waxa weeye warkan aad ku soo celcelinaysaan sidii record jabay idinkaa qaybsan oo Somaliland baa jirta idinkaa qaybsan oo Puntland baa jirta ayaa dadkaasi waa dad shaqo tegay dadka Somaliland u dhashay qabiilka doonaysa ku magacaabo ma waxa leedahay dad gobolada ka tirsan oo wasiirra ka ah Somaliland ma jiraan dad gobolkan Khaatumo hadda ka tirsan oo hayb ahaan adiga kugu tirsan oo aan wasiirra labada dhinac ka ahayn ma jiraan miyaad leedahay Cali Khaliif adeer waxaan adiga aan ku weydiiyay su'aal intaad weydiisan dabcan ku jawaabay adigu jawaabta hadhigan hadaad su'aasha isweydiinaysa aniga ay weydiin Somaliland wasiiray ku leedahay xamar Somaliland wasiiray ku leedahay Ethiopia Somaliland wasiiray ku leedahay Djibouti Somaliland meesha ay joogaan ay ka soo jalabuteynayaan bay ku leeyihiin wasiir maxaad qoladina meediyadu ay idinku muuqan weyday wardad dhulka u dhashay meelo kalena waa tegi karaan waa u shaqadoon bay u aadi karaan hadday politically ay noqdaan dad soo baxana baarlamaanaday ka galaan madaxweynayaal bayba ka noqdaan ama wasiiray ka noqdaan waxaa takhaatumo fadlan aan dhamaysto waxaad khaatumo ugu soo ururisaan oo xikmadiina ay ku soo ururto dadka Sooliya Sanaag baa qaybsan sida awgeed waa lagu murmayaa Cali Khaliif ugu dambeyntii hadda maxaad rabtaan oo maanta laga qorayaa haddii aad tihiin dadkii gobolkaasi maxaad ii sheegaysaa oo rabtaan adiga kuguma ogeyn qof taariikhda qore taariikhda Khaatumana ma qoraysid waxaan anaku rabnaa sida ummadda kale Soomaaliyeed ee adduunyadu kharashka badan ku bixinaya inay shiraan oo maamul samaystaan annaka qaramada midoobay iyo Europeanska iyo Mareykanka iyo Chinesku kharash lama siiyaan inaanu ku shiro inaanu maamul samaysano dad kale oo Soomaaliyeed oo inta reer Khaatumo ay sameeyeen ma jiro hadaad doonto recordka dib ugu noqo waxay rabaan haddana wax kasta mudnaan waxay ka siinayaan inay shiraan inay tashadaan inay dantooda gooyaha ka joogaan inay maamul samaystaan aad iyo aad baad u mahadsantahay ay rabaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtiga aadna siisay ra'iisul wasaarihii hore kaasi waxa waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleer oo isagoo jooga meel u dhow magaalada Laascaanood telefoonka ay ugu warramay halkaas naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London